بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الشرف تلميذ كستجوتي وعليكم السلام سلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب السود هذا سكراب نو سارة نو كلكعية كلكعسكي وإلودين خوفك والو كلكعية مركا إيمان ستار 1 على كلكعية مركا إيمان ستار 1 وحان رجينا إن شاء الله إنه هرمر إيو ماشو هرمر إيو هناك إن شاء الله إنه قارنو walaalayaal dhowr maalna kala maqneen oo yaraan 3 maalin iyo meelahaas oo maleena inoo kala maqneen laakiin hadda waa isku soo laabanay korontada magaalada galab waa marka korontada ayaana iska maqneed waa 2 maalin ama 3 maalin maalin saddexaad way imaatay korontadan way guwatay marka alaasna koronto la'aan oo iska ogtahay telefoona oo charger wax yar gashanaysid waa aragtay telefoonka motorka iyo korontada motorka oo kaleentay iris markii boo iska dhacaa waas waa gaadgaadmay halo leeyahay qad warkiisa ma bajiro marka maalmahan waa aragteen Soomaali iyo Kenya jac isku ah kala qabtay ka dhacay marka Kenya faragelin arimaha gudaha Soomaaliya horta madax banaanida Soomaaliya waa lama taabtaan dhulbo iyo badbo hal taaka kamid ah wadankeena qof bini aadan loogu sabray mar dhibac kamid ah dawladda hore warqad u soo saartay safiirkii Kenya erisay wadankiisa wadatasha ugu laabtay Kenya wadatasha wadankeena lagu yeeray labada safiir wadamadooda kala tageen waayo Kenya arimo badan ay faraaq ku jirtaa arimaha gudaha marna dawlad kasta heshiis qaramada madooba oo 1900 la soo saaray jiro ilaa kuma soo wadam arimaha gudaha wadan kasta u soo madaxban Afrika sidoo kale marka adduunka looma baahna inuu hadda Kenya anaga musharaxiin ama waxaas oo Kenya ka tirsan hadda Soomaali imaado oo Soomaali ama wax u sheegto oo Soomaali faragelinay sameeyay arimaha gudaha qaas ahaan waxay faraha kula jirtaa arimaha maamulka Jubbaland Ahmed Madoobe waa ogtiin wuxuu ka mid yahay dadka Kenya u shaqeeyo oo maanta la haasto marka qofka bini aadanka waxa loo baahan yahay inuu wadankiisa wax kasta ka hormariyo maxaa yeelay wadankeena anaga iskale wadan dadoow hada shilimaad lagu soo siiyo wax faa'iido leeyahay mal Soomaalina waxa waa liwaaxidii Afrika waa la garana Soomaali ma ay ugu soo carar Kenya hadda waxa maqlay war degdeg hadda naaw soo dhacay inuu iidina Soomaali diyaaradii aaday Soomaali ka baxay oo Kenya dul maray weerartay hadda waxa loo wareejiyay Ethiopia iyo Uganda hawadooda loo wareejiyay anaga Kenya diyaaradaha soo maray Kenya dhan diyaaradaha tagaan Soomaali hawadeeda soo maraa daqiiqada aan qabateen ku saar karno laakiin anaga arimaha inoo si kala arimaha si akrinaan aan diidina marka Kenya waxaan rajeynaa inuu ka waantoodo oo diris wanaag anaga dad oo wadanku wada noolaanahay oo qaarad ku wada nool waligeedna ma kala baxeen inuu la heshiimaan hal meel oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo dirisa wadanahay meel aan kala baxayna male laakiin waxa loo baahan yahay nin kasta inuu is ixtiraamo diris wanaaga labada wadan inuu is ixtiraamaan wadan kasta sharaftiisa madax banaanidiisa arimihiisa gudaha faraha loogu qaado anaga kuma xad gudubno Soomaalidii hore ma ah Soomaali way soo laabatay again cidna ogolaameena faragelin gudaheena inoo soo gasho wadan shisheeye anagana soo galo oo noo xukumo waa erinena safiirkii qaramada madooba hoosna erin iska dhaaf wax kale inta anaga waxay noo leeyihiin marka Soomaaliya gacmaha as qabsano wadankeena nabadgelyo aan ka wada shaqeyno dawladnimada ala taageero dawladnimada wax ka weyn ma jiro dawladnimada qaran qofka Soomaaliya sharaf maxuu ku yeelaha dawladnimo anaga u jeed hada sharaf inoo yeelo tirabtid qabiilna sharaf kuma yeelays khabiyaalad iyo nin jecleysna sharaf ku yeelays qarannimo wax ku yeelanaysa way qarannimada lama taabtaamo marka Soomaaliya gacmaha la isqabsado dawladda ala garab istaago anaga hil iyo power garab taaganahay marna kama gogortameen laba dawladood haday isqabtaan mucaarad iyo muxaafid inuu meel iska dhiga hal meel laga soo wada jeestaa dawladdaada garab la siiya marka siyaasadda arimaha siyaasadda inuu ku sii dheeraado scrap noo saar noo la gareey maanta wasiirka warfaafinta shirjira faafahin ku mucaaradka waa aragnay shalay warqada soo saareen war mucaarado kala saar qarannimada shakhsi kala saar adiga hada madaxweynaha ku kacsantaa min xukun rabaatay
maanta maxaan kugu aaminaa haddaa warqadda shalay soo saarteen si cad ah waxa ugu taageerteen Kenya laakiin waxaasna wax la aqbali kara mana aqbalayno ummadda Soomaaliyeed ma aqbalayn marka walaalayaal soo dhawaad subscribe noo saar noo la gareeya Soomaaliyeed meel kasta joogtiin guula nirijiya wadankeena doorasho aad ninkii